mudana gudoomiye iyo garsoorayaal iyo dhammaan bulshaweynta halkan joogta horta ilaaha mahad ku leh meesha nabad nagu wada kulmiyey mudana garsoore waxaa liigu soo eedeeyey inaan dilay xaaskayga taasoo ah been abuur waxnana aysan ka jirin annaga dad muslina ilaahay naga dhigay waxa ugu weyn wax lagu xukumana waa shareecada islaamka aniga maanta horta wax liigu xukumo oo maanta dembi aan geystay ma jira ayaan leeyahay balse waxaan qabaa in arinteeda loo bandhigo shareecada islaamka maadaama qof muslim ahay xaaskaygana muslimada ay ahayd eheladeennana ay yihiin labada ehelba muslimiin shareecada islaamkana markasta qof gooniya uma hiiliso keliya cadaaladda iyo maxay ahayd sida saxda ayay wax u jirtaa taa markii laga soo tago xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka soomaaliyeed wuxuu igu soo eedeeyey in aan dilay xaaskayga shidaal aan ku bilbilay horta taa waa maxay ahayd waa mala awaal waayo hadalkaa markuu leeyahay goobjoog moose ahayn maxay ahayd wax CCTV camero oo ka arkay ma aha keliya qiyaastiisa iyo maxay ahayd halkubeegiisa unbaa sidaa noqday qofka muslina ee shareecada islaamka ku dhashay in malo lagu xukumo dilna loogu xukumo laguna dilo dabcan mudan garsoore adiga iga yaqaan wax fiican inaysa ahayn maxkamaddii horena waxaa liigu xukumay dil toogashaa ayadoo aan lahaynin wax caddeena oo maantay dhihi kara sida cali ayaa dilkan geystay ayadoo lahaynin markhaati dhihi kara falkan soo geysanayaan markay iguna markhaati furi kara iyo kuna dhaara kara markhaati walba la keeno wuxuu ka tarjumayey waxaan arkay gabadhii Yusaana ama dhacdada ka hor ama dhacdada kadib mudan garsoore waxaan arkaa waxa liigu tilmaamaya in si wax kama jiraan ahayn hadda tusbaxaan awto waa 100 xabo haddaan iraato 70 xabo waaye wax suurtagal miya waa may waxaan kaloo arkaa maxay ahayd maanta dhibka dhacay waxaa liigu eedeeyey inaan dilay xaaskayga tusaale haddaan ku siiyo mudan gudoomiye maanta gurigayga hortiisa ama qofka gurigiisa hortiisa god ka shiday qashina ku shubay uu gubay qof wadada soo maray dadkii ku dhacay qofkaas asaga ma dilay waa meesha waxaan arkaa mudan gudoomiye kiiskii in la siyaasadeeyay oo maxay ahayd qofba qaab gooni ah oo u qaada dhigayo waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed in Ilaahay ka baqaan horta marka uu horeyso qof gooni ah oo god la galay ma jiro qof walba qabrigiisa ayaa sugaya maanta haddii la helo markhaati dhahayo sida cali anaa arkayay markuu falkan geysanayo ama camera laga helo ama maxay ahayd qaab kasta waxaan ogolahay xataa inaan barisi noolaano maanta shareecada islaamka lagu fuliyo laakiin dembi aan lahayn mudan garsoore yaa dusha laga saarin maanta inaan mudan garsoore ayadana noqdo xaaskayga liigu tilmaamay inaad dilay oo wuxuu ilaahay qoray lixda arkaanuna iimaanka ayaa ka mid ah wabilqadri khayri wa sharri qofka islaamka inuu aamino aniga waa aaminsanahay qadarta khayr iyo shar batay tahay adigana mudan garsoore ilaaha kuu nimcadan ku siiyey maanta inaad garteeda noqdo oo maxay xaakimkayga noqoto waan kaaga mahad celinayaa ilaahayse adina waxaan kaa codsanayaa mudan garsoore si xeel dheer maxay ahayd shareecada islaamka waafaqsan inaad igu xukunto adiga igu xukumin sidii maxkamaddii hore ayada markhaati leeyihiin caddeyn leeyihiin qaraar leeyihiin si mala ah qofka ibni aadanka maanta qaab wax u dhaceen adigana qaab kale u fikiri kartaa qof walbana waa sidaas marka qof ibni aadan ah oo naf leh ilaahay karaameeyey maxay ahayd mala in lagu xukumana sharci qaanuuneed iyo sharci islaamba midna horta ma dhigayo waxaa kaloo u soo jeesanayaa bahda saxaafadda oo maalintii dhibkan dhacay ilaa maantay wax aan jirin bulshada maxay ahayd ku wacyigelinayo waxaan leeyahay qof walba saxafiya
waxaa la rabaa bulshada inuu u dhexeeyo oo qof gooniya ama dad gooniya ama dano gooniya u janjeersan waaqica dhabta oo jira bulshada oo ka dhaadhiciyo laakiin waxaan jirin ama aan dhicin si kale bulshada ugu fasiro way aaminayaan waayo ay guryahoodii joogaan telefono unbay ka fiirsanayaan marka waxaan leeyahay saxaafadda ilaahay ka baqa dad dhalinyaraad tihiin maanta dhibkan igu dhacay beri ka maalin qof idin kamid uu ku dhici karaa qof walbuu soomaaliyaana ama qof walba muslinaana adduun intuu joogo waa la imtixaanaya wax walbana way ku dhacayaan marka been abuurka ha la iska daayo waxaad ogeyn ha ka been sheegan sida saxda dhexdhexaadka uga hadla waana mahadsanyahay mudana garsooda mahadsantihiin dadka siyaasiyiintana waxaan leeyahay horta ilaaha xilka u doortay labada helba dad siyaasiyiinay leeyihiin dhan walbay noqoto waxaan leeyahay ilaah horta marka u horeysa ha laga boqo maxay ahayd fidno yaa la kicinin waayo fidnada wax ka daran horta adduunka korkiisa imaada ma jiraan waxaan leeyahay fidnada yaa la kicinin dadka yaa la isku dirin waxaan jirin dadka yaa laga dhaadhicinin qof walba siyaasiya maantay meel kastuu iga daawanaya waxaan leeyahay ilaahay ha laga boqo kiiskaygana siyaasadda ha laga daayo si shareecada waafaqsan oo saxan ha laygu xukumo haddaa dembi leeya anaa diyaar u ah dembiga in laiga jaaseeyo haddaana dembi lahayna in lagu fasaxo oo aan lay siyaasadeen oo maxay ahayd nafsadeeda lagu xadgudbin intaasaan waan garsoor codsanayaa waana mahadsan tahay